garoonka kubadda cagta xaafadda Mayfair magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaa laga furay tartan sportis oo lagu maamuusay bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoona ay furitaanka tartankani ka soo qayb galeen mas'uuliyiinka kala socday qeybaha isboortiga Soomaaliyeed madaxda jaaliyadda culimada ganacsato iyo dadweyne fara badan kuwaas oo soo daawasho tagay مسؤولينتي كسو قيب قشي مناسبة فوريتان كوب كرمضان أيا قطبة كجيديين كوبتا وحانا اي دمانتو تكولا دردار من كوحاها كقيب قادان يترتن كان لغو موسى يبشا بركيسان رمضان إن اي موجيان عيار وناق يغونا الشيغي إن اي كوحاها اي أبالمرين كوهليان أسلوب وناق عيار وناق يدوري دا شرعي اسبورتيغا يغونا عيار تويدا أبالان قادي إن اي قدون سينيان أبالمرين كالدوان وحانا هذا اللذو دي كميدها ما سنتين دمان بعد عيار تويدا لما كوحاد ku kala ciyaar magacyada wada jir iyo FC Kismaayo aad baan idin mahad celinaynaa diyaar garowga aad muujiseen waxaan kaloo mahad celinayaa ka soo qayb galaasha taageerayaasha ka soo qayb galay waxaan u mahad celinayaa ganacsatada sharafta leh gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa xawaalada Juba Express oo kaalin weyn ka qaadatay inuu suuro galo ama uu dhaco tartankan quruxda badan tartanka koobka tartanka bisha barakeysan Ramadaan ayaa waxa mahad weyn ilaahay baa mahadka ka siko waxa mahad mudan xawaalada Juba Express oo kaalin lixaad la naga qayb qaadatay koobka qabashadiisa waxaan aad ugu faraxsanahay hadaan xafladda Juba laanteeda South Africa inaan mar walba garab taaganahay ciyaartooyda Soomaaliyeed ee South Africa khaasatan kuwada ku dheelayaan Johannesburg waxaan rabaa exactly inaan kula taliyo dhammaan dhalinyarada isboortiga marka ugu horeysa inay isxaq dhowraan waxa la ciyaaraya ay kiin kubad la dagaalanka xagga garoonka dhexdiisa lagu dagaalamayo iyo waxyaabaha la midka ah si kastaba ha ahaatee tartankan sportis ee lagu maamuusay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa isaga hor yimid labada kooxood oo kala ah Kismaayo iyo Wadajir waxaana ciyaarta ay ku soo dhamaatay hal iyo eber oo guusha ku raacday kooxda Wadajir Cabdinaasir Soomane Universal TV Johannesburg